Oi, Mohammed. Abo soo dhow minka kale waay kuleel qoom xaaboys. No. Ciao. Nadeerow. Okay. Subaxii aroortii subaxii habeenkii waan soo meesaqda dhexe habeenkii waan soo kacayo muntaasay idhaahdaa saqda dhexe habeenkii waan soo kacayo muntaasay idhaahdaa wuxuun baa ii sanqanayo sahwi baan ku noolahay ma seexda habeenkii wuxuun baan khalqalday. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابته كحيران أرفيلمس وحن الله هاي مر لبادي مر صدحات با السلام عليكم وأصحابتيني أرفيلمس أو إدين صوبان ديجي دونتا برنامج أو قروح بدن أو تجابي عدكاغا أما تالنت وحاد كل هذا هايبا sida aad arkaysaan ba waxa maanta ila fadhiya walaaladay maame iyo nimcaan haduu ilaahay iraado fanaaniino way iman doontaa iyo dhamaan shacabka dadweynaha reer Jigjiga iyo dad kale oo meel kasta ka yimaada haduu ilaahay iraado meeshan aad nagula kulmi doontaan haduu ilaahay iraado imikana waxaan doonayaa inaan mikrofoonka u wareejiyo walaalkay maame sidoo bal in yar isku kaybaro. horta aad iyo aad buu maadsan yahay Cusmaan waa runtii barnaamijkan uu noo socon doona haduu la yiraahdo ana hadan yar iskiin baro magacaygu waa Maxamed waxaan ku magac dheerahay Maama Dayax de kulli wax kale oo iskiin baro ma garan maayo kulli aad iyo aad baad maadsantiin. Okay maame aad baad u mahadsan tahay waa Maxamed ama Dayax sidaad jeceshiinba imikana garabkayga bidix waxa fadhiya saaxiibkay Nimcaan bal Nimcaan adiguna horta Cusmaan aad baad u mahadsantahay marka koowaad waan kaaga mahad celinayaa maadaama nagu marti qaaday barnaamijkaaga waliba aan nahay dadkii ugu horeeyay aad ka qabato marka labaad waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan taageerayaasha kooxda Arfilms waxaan idin leenahay aad baan dhamaantiin baydin jecelnahay mar walba waxaan barnaamijyadan kala duwan iyo entertainmentigan kala duwan aan u sameynayno waa idinka dartiin si ay naad nooga caajisin marka hore aanu iskiin baro magacayga waxa la dhahaa Nimcaan waxayna dadku inta badan igu naanaysaa Nimcaan boss waad ku mahadsantahay Cusmaan barnaamijkan aad ugu marti qaaday. Nimcaan boss aad baad u mahadsan tahay barnaamijkeenu hadaba imika uu noo bilaabmaya haduu ilaahay iraado waxaan isweydiinana su'aalooyin kaftanna uu ka banaan yahay wax walba la isweydiinaya qof walba talentigiisa iyo hibada iyo hal abuurka uu ilaahay siiyay ayaan meeshan doonaynaa inaan ku soo bandhigno su'aasha ugu horeysa waxaan weydiin doonaa walaalkay maame saaxib hadii aan ku dhihi lahaa fanaaniintii hore fanaankee baad jeclaan lahayd fanaankee baad dhihi lahayd saaxib horta aad baad mahadsan tahay Cusmaan haddaan dhaho wallahi fanaaniintii hore waxaan aad u xiisin jiray ama aan aad u dhageysan jiray heesiisa shay mira dacar. Okay shay mira dacar baad tiri aad iyo aad waa fanaan aad iyo aad aan u jecelnahay anagoo dhan bal waa yahay shay mira dacar hadii lagu iraado heesihiisii mid ka mid ah wax noogu yaro luqee maxaad dhihi lahayd saaxib haddaan isku dayo horta codkiisi waxa ay la tahay inaan gaarsiinin laakiin waan isku dayay inaan codkiisa aan gaarsiiyo hees kamid ah heesiisi ayaan isku dayayaa inaan qaado haddaan xumaayana waan iga raali gelinayaa. Okay waxay dhahaysaa muxuu nabar ka caashaqu igeystay naafada nayahoy oo nudubta hooyo naxariista aabiyo ifka gacal dadkaygi joogigaala noogeen aad baad mahadsan tahay. هلا إلهي عدكاga waxa kuugu daro aad baad u mahadsantahay maame saaxib waxaan soo xasuusisay shay mira dacar talent fiican waa leedahay aad baad u mahadsantahay maame imikana waxaan u wareegayaa walaalkay Nimcaan bal Nimcaan hadii aan ku weydiin lahaa su'aal ah fanaankee baad jeceshahay fanaaniintan dhexe keebaad dhihi lahayd heesteedna dhihi lahayd saaxib qaali horta Cusmaan mar koowaad iyo mar labaadba aad baad u mahadsan tahay run ahaantii waxa jira fanaaniintii dhexe hees ay qaadeen balse run ahaantii ma si xasuusto fanaanka heestaasi qaaday waxaan isku dayi lahaa inaan fanaanka heestaas u dhaweeyo boqolkiiba 30 inaan gaarsiiyo inkastoo aan gaarsiin karin meeshii loogu talagalay waxay heesto odhanaysaa jacayl waa dimbiilo waa dhamac la shidayo kuba dhalaalinaaye dibyaaraantu igu helay madadamiya onto cadaadhayaya nabarada dhakhtaradu ka qoosteen cadaadhayaya nabarada
dhakhsaaradu ka qoosteen asxaabta codkaa waan idinka raali gelinayaa aad baad u mahadsantihiin nimcaano aad iyo aad baad u mahadsan tahay hees aad iyo aad u qiimo badan baad qaaday walow aad garan weyday laakiin fanaankii qaadayay annagoo ma garanin hadduu ilaahay okay su-aasheena halkaasaan kasii wadananaa saaxiib qaali su-aashaas oo ah bal haddii aan ku dhihi lahaa xagga hal abuurka erayada iyo abwaannimada in wax la abuuro erayo la sameeyo sideed isku tihiin bal saaxiib horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay iminkaad soo gashaan taalantigayga run ahaantii waxaan aad baan horta saan anugu isleeyahay waan isku fiicannahay eraya samaynta iyo waxyaabahaasoo kale eraya aad u fara badan oo aan sameynay way jiraan hadda ka hor marka maad garanaysahay de kolley horta anu isma odhanaya abwaan baa tahay heesana ma aanan sameyn laakiin waan sameeyey taleefonkaygaan ku haystaa cidna ma siinin cidnana maad garanaysaa inaan siiyo ma jecelin okay waxaad wadaa ii sheeg heestayda laguma qaado okay bal haddii aan ku dhihi lahaa nimcaano qaafiyad baan kuu dhiibayaa qaafiyadda ka samee erayo ka samee ma ka sameyn lahayd saaxiib qaali horta si fiican waan ka sameyn lahaa laakiin wax kasta wuxuu u baahan yahay waqti soomaan markaad eraya sameynaysana ani ahaantayda sidaan aaminsanahay de markaaba wax qofka biniaadamka dee kusoo degaya maaha waxay u baahan tahay inaad fikirto inaad maskaxda ka shaqaysiiso dee markaa laakiin waan karayaa say ila tahay okay hadduu ilaahay idhaahdo qaafiyad baan kuu dhiibi doonaa hadduu ilaahay idhaahdo wax badanna ha nooga sameynin hana nagu badinin hadduu ilaahay idhaahdo waxaad nooga sameynaysaa 3 leen ama 4 leen bal ii sheeg ereyga sa waxaad nooga sameysaa 3 leen ama 4 leen oo qaafiyad ah okay cusman waad mahadsan tahay inkastoo su-aashaas kedis igaga dhigtay qof walbaba haddii su-aal noocan oo kale loo dhibo kedis laga dhigo ku adkaan lahayd in yar hal daqiiqo maskaxaan iga shaqaysiinaya waxaan waa mashiin weeyaan waxbuu soo tuurayaa okay si fiican bay dhegeysanaysaa no dhagaad soo taagaysaa ka hor waad yar xiisaynaysaa eradeeda okay haddaan isku dayay inaan sameeyo haddaan de wax khalkhaldana dee inaad ugu qosashaa saaxmaro ila kadis baad igaga dhigteene okay subaxiya aroortii subaxiya habeenkii waan soo maysaqda dhexe habeenkii waan soo kacaayo muntaasay idhaahdaa saqda dhexe habeenkii waan soo kacayo muntaasay idhaahdaa wuxuunbaa ii sanqanayo sahwi baan ku noolahay ma seexda habeenkii waraa wuxuun baan khalkhalday deeg arrinkan waxaa u baahan tahay in laga fikiro u baahan tahay arrinkaasi in laga fikiro u baahan tahay asxaabta qaaliga imka erayadan waan sameeyey waxay u baahan tahay qaabkay u kala hormarmarayaan qaabkay isku daba dhigayso inay intaba de waxay u baahan tahay waad garanaysaa aad waqti qaadato aad qorto aad fiiriso u baahan tahay marka horta arrinkaas saada iskumana ficin tukalo caadiya ma ku waxay anugu midaad hore u samaysay ama waxaad si fiican de midaad hore u samaysay mar maxaad ii odhan weyday ilaa waxaan kadis baad igaga dhigtay heesoorta walahi run ahaantii markaan aan u fiiriyey aad u macaan baan sameeyey xataa qaar fanaaniin oon tusay walahi in badan bay iga baryeen inaan siiyo laakiin waan ka yara joogsaday oo waxaan diiday inaan fanka dee sii dhex galo waayo waxaa la yidhi siriq dee waxaan ka baqay inaan maad garanaysaa kusii talax dheeraado oon abwaan caana noqdo waxay heestan horta waa heestan waa taan ugu jecel ayaan sameeyey waxay odhanaysaa agjoogiyo daymadaada markaan deeriyaan duloobay duruustiiyo waayahayga adaa muntaasay daryeela adaa ii dooro wanaaga dantaydana yaqaana adaa ii dooro wanaaga dantaydana yaqaana adaa daryeel isiyo aniga daalin qaali allaan kuu doortee daa'inkiin waxaan ka baryaa inaan daadahayno caashaq dunidoo dhan wada gaadha alla ya ciisag ninkaas abwaanimadeedu ku xun yahe saaxiib waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo madii ogolaanaysaa okay sax maame anu hadda inaan abwaanimada ku fiicanay adigu waad iska xaqiiqsan tahay dee waxaan ku odhan lahaa aduu mar walba waxaan ku arkaa hees ka qaadayo lahanaan lahayn iska samaysanaya waxaan jeclaan lahaa inaad heestayda maanta la xamiiso waa dee ku luuqayso bal laxanka inaad dee la xamiista tahay oo maad garanaysaa erayadeedan aad jeclaysiin karto bal waan fiirinayna
arrinkaas iyadoo aragtaan ya waqti ba qaadanaya horta aad baad u mahadsantihiin horta dhanka laxanka dee layguma imanaya anigu ya laxamiistii qarnigan hayo haddana muuji okay arta ila yaabina anu falaa lama yihiin laxamiistana ma yihiin runta marka laga hadle eestu yar adkaatee inaad yaryar iska raali noqdo haddana meel xo ila gasho iska raali noqdaan ilaah agjoogiyo daymadaada markaan dayriyaan duloobay duruustiyo waayahayga adaa dejiyo daryeela laa ilaaha ila allah maxamedu rasuul abdi war maanta iyo wallaahi waxaan maanta la kulmay laba nin oo aad iyo aad u qaaliya ninna waa abwaan ninna waa laxamiiste okay aad iyo aad u maasayn run aad iyo aad bay iga farxiyeen maanta maadaama oo aan maanta garabkayga u fadhiyo laxamiiste weyn iyo abwaan weyn u fadhiyo de hodan baan nahay maanta run hodan baan nahay oo aad baan qaali u nahay marka bal su'aalahaygan sii wadanaya hadduu ilaahay yiraahdo imikana waxaan su'aal weydiin lahaa qiimo badan ninka walaalkay maame saaxiib bal su'aalan ku weydiiyo maame su'aashaas oo ah 10 fanaan mid kamid ah baad dooran doontaa midka ku soo baxana waxaad noogu luqeyn doontaa heesu isagu leeyahay 1 ilaa 10 number qabso horta aad baad u maansan tahay laakiin de laxamiista maame inaad tiraahdo laakiin waa iska caadi maxaa dhahay anu 2 ilaa 10 hadaan lacag la qabsado waxaan qabsan lahaa number 7 okay number 7 waxa ku soo baxay nimcaan hilaac ba ku soo baxay waxaad noogu luqeyn doontaa heesu isagu leeyahay okay horta aad baad u maadsantahay waxa ii soo baxay fanaan qaaliya iyo horta aad baad horta ugu maadsantahay waa dhanka nasiibkana aad baan isku fiicanahay hadduu nimcaan nasiibka geli lahaa mursal fala degan baa soo bixi lahaa laakiin anigu waan isku fiicanahay dhanka iyada haddaan heesu leeyahay isku dayana maxaa dhahay waxay noqonaysaa aduu ku balanbalaadhe aduu ku baaqayaadhe wardi laxamiisto waan isla hayaa aad baad maasantahay niyo niyo laba eray un baad ka qaatay bal waay waan iskaga ka dul qaadan doonaa nimcaanow haddii lagu dhihi lahaa fanaaniinta hablaha fanaaniinta caalamka jooga iyo kuwa deegaankeena jooga iyo kuwa Soomaaliland jooga iyo kuwa de meel walba jooga oo dhan gabadh ka mid ah ayaa waxa lagu yiri adoo fanaan ah hees la qaad teeba dooran leed bal fanaaniinta horta aad baad u mahadsan tahay fanaanada aan fanaaniinta hadda joogaan aadka u taageero waxa weeyaan hodan cabdiraxmaan haddaan lacala fanaan ahaan lahaana hodan adan kula soo lahaa oh ma sha Allah hodan cabdiraxmaan dheere ayaa la heeslay okay bal su'aal baan ku weydiinayaa kale su'aashaan ku weydiinay waxa weeyaan haddii lagu dhihi lahaa bal hodan cabdiraxmaan maxaad ku dooratay talanti maxaad ku dooratay maxaad dhihileed horta waa su'aal aad u fiican run ahaantii qof kastana wuxuu leeyahay maad garanaysaa dad u khaas ah oo taageero iyo waxyaabo gaar ah oo ku taageero anu hodan cabdiraxmaan horta dar ilaahay baan u jecelahay teeda kalena waad aaminsantiin waa gabadh horta run ahaantii aad iyo aad u cod macaan marka daanu codkeeda macaan iyo talantigeeda ay leedahay qab isma geliso waa gabadh degan marka deganaasheeda inta badan ku jeclaada kulli aan dadka istusinta leema tusi kara saaxib okay aad baad u maasantahay saaxiib qaali hodan cabdiraxmaan أنا sidoo kale waan taageeraa waana favorite-kayga koobaad weeyaan aad baan anaguna u jecelnahay Allah ku sharfaan ku leenahay hodan okay bal maame haddii aan jaanisku siin lahaa ku dhihi lahaa nimcaan su'aal weydii maxaad weydiin lahaa saaxiib horta niyon aad baad horta u maasanto wax qalbigay ka guuxayay umbaad igu dhahday aad ugu maasantahay arrinkaayada la'alla nimcaan haddaan su'aal weydiinayo waxaan odhan lahaa nimcaan la'alla gabadhaad wada sheekaysataan baad isku dhacdeen okay يعني قاب نوعية إذا اللي قلنا هذا واحد أنا يعني سأد اللي قلنا هذا أنا جاي مكان أتصل. أرت عاد ضوء مع سنتين محمد. أرت حاجة شعيل كاد مسكوف في عنها. أضوء سجرة نيسا سمع. نسيت الوقت هاي بشعيل كان مسكوف في عنها هاي. أو ده له عاشق بنسكاه. أتقرن السمع. مركز جود عن شعلنا هاي صالحان وحويان عثمان. وحربين الرالي اليوم. تكوبات. rag iyo dumar horta waa la kala duwan yahay gabdhuhu way qalbi jilicsan yihiin waxaan aaminsanahay gabadha jecesha laba eray haddaad ku tiraahdo inay maad garanaysaa qalbigeedu aad u jilicsan yahay qalad kasto aad ka gashan ay ku raali gelin doonto horta kulli tu kasto ay ahaataba in waxaan aaminsanahay maad garanaysaa ay ku raali gelin doonto marka u horeysa ee rabto qof inaad qalbigiisa xado indhaha loo saara maxamed
inkastoon qaladkaa galay magaca gabdheed ugu yar saaxib يعني waa gabadhii weeyaan okay just muntaas run ahaantii waxaan ahay qof zaid ku jecel si kastay ahaataba ama si kastoon qaladkaaga galo marnaba kama quusaneen naxariistaada waxaan jeclaan lahaa inaad iska cafiso nimcan khaladkaad gashay waad garanaysaa markii aad khaladka galaysay waad garanaysaa waxaan inuu xun yahay maxaad imika ka raali gelinaysaa horta sidaad ogtahay bini'aadam baynu nahay bini'aadamkuna qalad wuu galaa wuuna ka dhacaa balse waxaa fiican mar walba uu qofku qaldamay inuu ka soo laabto aniguna maanta waxaan qaladkayga uga soo laabtay in hortaada u imaaday waa kalsooni aan adiga kugu qabo marnaba isma lihi haddii aad u soo laabato way ku diidaysaa sidaas daraaddeed baan kugu soo laabtay waanad ogtahay inaan aad ku jecelahay waxaan rabaa inaad sakii cafiso farxadayda hore inaad ii soo celiso muntaas diidinte horta maxamed anuu igu xumeynayay aad arkaysaa is adkeynayay laakiin qof maad garanaysaa jecel hayo haddaad saa ula hadasho waxaan aaminsanahay khalad kastood ka gasho inuu ka cafin doono anigu waan qaatay nimcaan haddii lacala aan ahaan lahaa gabadh oo sidaa ii raali gelin lahaa waan qaadan lahaa just kuma soo celiyeen aad baad u mahadsantahay saaxiib qaali mar kale ayaan waxaan idin weydiinayaa su-aal aad u qiimo badan labadiinaba oo aan isleeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed way u kala qaybsan yihiin oo yacni isheeg way ku kala hadlaan laba lahjadood adigu waxaad ii qaadan doontaa dhanka reer waqooyiga luqadda reer waqooyiga aad igula hadli doontaa adiguna waxaad igula hadli doontaa dhanka koonfur iyo xamarka aad igula hadli doontaa marka bal sidaad isku fahmi lahaydeen labadiinan qof ayaan tijaabinaynaa bal marka adiguna ii matal reer waqooyi adna ii matal reer xamar ii matal bal wakaa abo maxamed abo soo dhawo mininkaale waa kuleel qoom maxaa boys naw jaw naadeerow maxaad ku hadlaysaa inaad arada qeylada wallahi inaan buga ku gelin hadii kale naadeere laga daayna qeylada af Soomaaliland ku hadlo yaa boy ma fahmaysid naw wax ma nagba ooy abti naga daa kafta ko naadeere naga daa waxaad ka sheegaysaa naw waxaad ka sheegaysaa ada sarraga wala naad alle maxaa la qiilinaysaa guri mininkaaga la soo galaan ku dhahayaa mininka waa ma mininka la sheekeynayso wax naadeere ugu kala adi min mataqaanid miya baadiya miya ka timid baadiyad ku weyn naw waxay ka sheekeynaysaa qaw ari naadeer qeylada iga daa sida ragga wada loo bixin nicnicda abo aan lahjadeedan ku hadlooyaa أنا لحد ذي نكون هذا هيا إلى غير ذي كذا لا أصحاب غالي قارت وأنا ذكر علي قليل أنا هرت ولي كحمر ما ننسجين أنت أنا فان بروش كان كبرتي فان بروش كاد بانو تاجرا أنت داوني أد بان ما تقرني ساي أنت هاي كان كبرتي مركز العلا دان إير حد جذب سمي وأنا ذكر علي قليل أرتن إنه أدبد ما سنتين أنا قلت ركيب وحنفلي أنا كعيارة ده لكن أدبد ينكر على قلنا يا واسكا كفتهم ويان مركز أدبد ينكر على قلنا aad baad u mahadsantihiin labada dhinac way iska raali gelinayna way lahjada badan yihiin luqaduna way kala duwan tahay isfahanka un baan anagu u jeednay wax khalada ama waxaan dad aan ku taageerayno ma ahan marka iska qareexaan baheed bal imika su'aal baan idin weydiinayaa labadina dhinacba ay ka siman tahay su'aashaasi inkastoo barnaamijkeenu gabagabeeyay waxaan idin weydiin doonaa su'aal labadina dhinacba ay ka siman tahay haddii Ilaahay yiraahdo su'aashaas soo noqon doonta nin walba dareenkiisa isagoo ka hadlaya heesta saameyn ku ah ama heesta uu isdhihi karayo dareenkayga ka hadasha bal ha inoo sheego iyo qofka qaado wuxuu qofku yahay haddii uu nooga luuqeyn karayana in yar ha nooga qaado horta aad baad u mahadsan tahay qof kastaba noloshiisa waxaa jira shay saameyn weyn ku leh ani hees baa jirta nolosheeda saameyn weyn ku leh heestaas runaantii ma garan karayo qofka qaaday heestii horena sidaasaan idhi laakiin waa heesihii hore waxay odhanaysaa alla dheeridaayey ma dhulkalaad ku nooleyd macaan dheeridaayey ma dhulkalaad ku nooleyd ma dhadhaaba culusba ina kala dhex yaalo soo dhaafilaadahay heestaas aad bay nolosheeda saameyn ugu leedahay waa heestan heesaha ugu jecela weeyaan ما شاء الله aad baad u mahadsantahay saaxiib qaali waan soo raadinaynaa qofka qaadanayo magaciisa iyo qofka uu yahay hadii la yiraahdo imikana maama weydiinayna saaxiib su'aashan ku weydiiyay waad ogtahay waxa weeyaan heesteeba saameyn kugu leh ama noloshaada aad dhihi karaysaa way ka hadlaysaa ama aad jeceshahay haddaad noogu luuqeyn karaysidna noogu luuqeyn horta Cusmaan aad baad u mahadsan tahay horta waxa aniga saameyn ugu leh waa laba heesood weeyaan hal heesa maaha waa hees Suldaan qaado oo xamar bila
iyo hees uu xariir qaado oo ah maxaa la dhahayay uu xaaskiisa u qaaday marka xamar bilo la wada garanaya marka heestan xariir tan inkastoo la wada garanaya hadan heestan oo xariir qaadayaan ku luuqeynayna adaa dhowrsanay naftayda dhibtiya dhaawaca u dida adaa dhoolta hablamood dhabtii aan kugu daga adaa dhoolta hablamood dhabtii aan kugu daga aad baad mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin labadiinuba dhammaan taageerayaasha Arfilms waxaan idin leeyahay la socod wanaagsan insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo isbuuciida mar waxaan idin soo gudbin doonaa barnaamijkan oo kala ah labadeeda garabna waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin maadaama aad waqti fiican ila qaadateen okay aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijkeenu waa gabagabo iminkana waxaan idin siinayaa min hal chance baan idin siinayaa oo aad ku macsalaameynaysan asxaabtiina iyo taageerayaashiina Arfilms bal maame adigan kugu horeysiiyo xaqin yaad ka salaamtaa saaxiib qaali horta marka koobaad aad baad u mahadsantiin ilaahay baa mahad iskale nagu kulmiya halkan talabaad horta waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan halkan aad iyo aad baan uga salaamayaa iyo kooxdayda quruxda badan Arfilms aad iyo aad baan iyagana u salaamayaa sidoo kale halkan waxaan aad iyo aad uga salaamayaa salaankal iyo laabaan uga salaamayaa Dirsila Cabdi oo runtii ah qof aad iyo aad u wanaagsan saaxiib waxaan ku leeyahay aad iyo aad baan ku salaamayaa baan ku leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin sidoo kale familkeygana aad baan uga salaamayaa dhamaantood okay aad iyo aad baad u mahadsantahay dhammaan ummadda muslimiinta iyo Dirsila Cabdi waan salaameynaa saaxiib qaali markaa go'een nimcaan adigana horta aad baad u mahadsantahay Cusmaan haddaan dhaho maanta dee halkan salaam badan ka dir waxaan ka baqayaa inuu gobolku noogu dhaco marka si guud ahaaneed baan rabaa inaan u salaamo dhammaan Soomaali Maxamed meel walba aad joogtaan aad iyo aad baan idin salaamayaa aad iyo aad baan idin jecelahay waxa kale oo salaamayaa Dirsila Cabdi waxaan ku leenahay Dirsile aad iyo aad baan adigana maad garanaysaa ku salaameynaa mar waliba waxa kale oo halkan ka salaamayaa gudoomiyahayga sharafta leh mudane Cabdiqani Khaliif oo mar walba kooxda Heliyo hoo la garab taagan sidii ay ku soo bixi lahayd maad garanaysaa ay wax fiican dadka ugu soo bandhigi lahayd isagana waxaan ku leenahay gudoomiye aad iyo aad baan ku salaameynaa adiga ahaan Cusmaanna waan ku salaamayaa Maxamed oo garabkayga fadhiyo waan salaamayaa kaameramanada waan salaamayaa sidoo kale aad baan idin jecelahay fanaaniinta haarun ahaantii wallahi anagu iskuma fiicnin maadaama Cusmaan barnaamij cusub bilowday wuxuu jeclaysiistay inuu anaga nagu furo anaguna waa iska cod xun waa iska aragteen waxaan idin leenahay codkaygana dulqaad ku dhageysta aad baan idin jecelnaa fanaaniintana waxaan idin leenahay aan heesaa kaga ciyaarnay iyo shacabka sida maad garanaysaa dhammaantiinba waad mahadsantihiin aad baan idin salaameynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin labadeeda garab iyo kooxda Arfilms oo dhan iyo kaameramanada iyo gudoomiyaheena naga maqan halkan salaan uga dirayo iyo dhammaan inta nagu xidhan oo dhan waan idin salaameynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idin leenahay barnaamijkan xagan kuma eeka labada kaliyana kuma eeka waxay ku eegyihiin fanaaniin badan baan idin keeni doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan idin keeni doonaa shacab badan baan idin keeni doonaa dadweynaha kamid ah hadduu Ilaahay yiraahdo waad nala socon doontaan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhammaantiinba iminkana waxaan leenahay hal hees yar baan leenahay nagula soo dhawaada markaa Double Andy subscribe to maxaad raadeen hal saarate